الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال waxaynu sii wadi doonaa in sha Allah axkaamtii soomka iyo masaa'ilkii ku saabsanaa bisha Ramadaan wixii sunnah iyo wixii ay ku xumaanayso waxyaabaha bishan dhexdeeda haboon waxa kamid ah qofku inuu suxuurto oo suxuurtu waajib maaha laakiin waa sunnayaasha soomka nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu inafaray tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka suxuurta buuri suxuurta baraka ku jirta marka xataa hadduu qofku kari waayo caafimaad ahaan oo aanay waafaqaynin wax yar oo khafiif ah inuu iska qaato ayaa u wanaagsan laakiin aragtida dadkeena qaar ay qabaan ee oranaysa qofku haddii aanu suxuuranin soomkiisu buraya taasi sax maaha soomku suxuurta waxba uma noqdo waa sunne baraka ku jirta markuu nabigu leeyahay waa baraka maadiya iyo mid macnawiya mid la arkayaa way jirtaa qofkii dee tamar buu helayaa soomkii uu iskaga xajiyo mid macnawiyana way jirtaa sunnihii nabigu waafaqaya sallallahu alayhi wasallam ni'ma suxuurul mu'min at-tamr waxaanu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha la cunayo isagoo kala qaaday qofka mu'minka ah waxa u wanaagsan waxuu ku suxuurto timirta afurkiina iyadaa u fiican suxuurtiina iyadaa u wanaagsan waxyaabaha ay ka kooban tahay oo qiimo badan daraaddeed iyo taqdiyadeeda axaadiidtaasi waa saxiix weeye sunnayaashiisa waxaa ka mid a tacjiilu lfitr in afurka hore loo soo dhigo oo marka la hubiyo inay qoraxdu dhacdayba qofku hore isaga afuro oo aanu dib dhigin nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo taa dhiiri gelinaya waxa uu xadiidkii bukhaari laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitr dadku khayr bay ku sugnaanayaan inta ay afurka dadejinayaan markay soomayiin ay afurayaan mar hadday afurka soo dadejinayaan khayr bay ku sugayaan khayrkaa culimadu waxay ku fasireen sunnii bay ku taagan yihiin sunnii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqadii nebiga may khilaafina si saxa ayay sharciga ugu camal falayaan arrintaasina aad bay muhiim u tahay waxaa kaloo nebigu uu xusay calayhi salaatu wasalaam ama dhaqankiisa ahaa siday asxaabtu inoo soo gudbiyeen waxyaabaha uu isticmaalaya markuu afurayo ayay inoo sheegeen wuxuu isticmaalaya rutabaat waa timirta xasiidda ah haddii uu taa waayana tamaraat timirteennan caadiga imika innagu aynu isticmaalno ilaan timirtii malabkeeda lahayd ee cusbayd ma hayno oo meesha iyadu ka baxduunbaa taa laga helaa marka haddii aan taa la hayninna timirtan caadiga ah oo tiro isdhimana 3 ilaa 7 saas oo kale haddii kalena biyaha cad buu isticmaalayay qolada caafimaadkuna hadda sidaa ayay ayidayaan waxyaabaha la qaadanaya inuu yahay wax aan cuslayn oo sidaa uu nabiguba maghribka ka hor sameynayay in qofkii uu fududeeyo afurka waayo calooshii soo madhnayd 18 saacadood ama 14 saacadood habkii ay kolkii hore raashinku ku jiray u shaqeynaysa waa ka duwan yahay oo imika waxa loo sheegay meeshii cunna ma jirtee inay ifraasaadkeedii iyo dheecaamadii ay soo daynaysay joojiso xaaladeedii walaaqa iyo howlgalka ahaydna ay hakiso marka calooshiyo sidaa isaga degan waa in lagu ridaa cunno fudud si ay markaa dhaqaaqeedu u sahlanaado laakiin haddii cunno culus lagu rido caafimaadaan khatar bay ku leedahay mana fiicna innagana waad garanaysaayoo wax wada shiilan ayaynu dabada u qabanaa oo saambuuse la badsadaa kow ka yahay dadka qaarkoodna hilibka iyo darabtaba ay horreysiiyaan markaa caafimaad ahaan sidaa uu nebigu sheegay ayaa sax ah in raashinka fudud xataa biyaha laftigooda halkan aynu ku dadaallo kuwa qabow waxaa ka fiican kuwa aan qaboobayn ama diiran haddaad kari weydana kuwo caadiya inaad isticmaasho wax kastoo sharcigeenu inoo sheegay xikmaddiisuu leeyahay maqribka dabadiba markaa qofku wixii uu cunaya uu maaragtay korkordhin karaa sunnayaasha waxaa ka mid a
inuu nebigu inoo jideeyey ducada qofku dee marka uu soomayeyna duco la aqbalaa buu leeyahay markanuu afurayana duco la aqbala ayuu leeyahay ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa habata dahaba dama wabtalat alcuruuq wahabata alajru in shaa allah haatan haraadkii waa tegey xididadiina waa wada qoyeen ajrigiina wuu sugnaaday ilaahay agtiisa biidn illaah in shaa allah hadduu ilaahay doono ajrigiina helnay ducooyin caama la iskaga ducaysan karaa kuwa soo aroorayna kuwayaalahaasa ka mid ah waanay habboontae wakhtigaa qofku cinda alfitri marka uu afurayaa buu nebigu sheegay marka uu afurayo iyo markuu afuray labadaba noqon karta inuu ducada iska badsado way wanaagsan tahay sunayaasha waxaa ka mid ah albucdu can irafath qofka wixii soomkiisa wuxu dhimaya dhacdhaca ee afxumo ah ee aan wanaagsanayna inuu iska ilaaliyo aad baanu nebigu uga digay axaadiid dhowra sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaari waxa uu ahaa idaa kaana sawmu yowmi axadikum falaa yarfuth maalinka uu midkiin sooman yahay ha iska ilaaliya rafadka waxa la yidhaahdo hadallada dembiga ah ee foosha xun rafadku waxa weeye alwuquucu fi lmacaasi waxalla wixii dembi lagu dhaca ah markaa arrintaasi waxay ku ilaalinaysaa soomkaaga laxa jeclaa inu ka qabno daraaddeed haddaad taa diidana ka macaashi maysidoo nebigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca dacaamahu wa sharaabah qofku hadduu hadalka xun iska dayn waayo iyo hadallada dembiga ah iyo ku dhaqankooda oo had iyo jeer uu iska caadaysto afxumada aflagaadada dacaayadda macaasida waxa uu badiyo ilaahayna muraadkama laha uma jeedo inuu iska daayo cunada iyo cabidda macnaha soom marka la leeyahay wixii dembiya waa inuu qofku ka afxidhnaado ee soomkiisa dhaawacaya ee waxyeelaya waxalla wixii xaaraama sida maal beentii isku darkii wixii la odhan jiray markhaati beenaalaha waxaasoo dhan waa inuu ka fogaadaa jaraa'imka iyo dembiyada waaweyn nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintan mar saddexaad buu sii adkeeye waxau ihi ruba saa'imin laysa min siyaamihi ila aljuucu waalcatash waxa iska badan buu ihi qof sooman oo soomkiisa un kala kulmay juuc macnaa gaajo wuu gaajooday laakiin meeshii ajri ma yaallo waa digniinuu nebigu bixiyey sala allahu calayhi wasalam waxyaabahan habboonay waxaa ka mida dadkeennu waxay ku mashquulsan yihiin ee musalsalaadka aadka dadka weliba guryaha iyo loogu daawado aad baynu uga digaynaa oo ajrigaagii iyo abaalkaagiiba wax badan la degayaanoo qaladaadkaa ku badan jarasaadka faariq ahina waa la mid fadhiyada haddii aanay sharba lahayn aan faa'iidada lahayn waxaa sidoo kale iyadoo ujeeddo aanad lahayn suuqan saxmadda badan ee dumarka iyo ay ku soo urureen dadka badani ee ishaadu ay qabanayso inaad dhex wareegto habeenkii iyo maalintii labadaba waxaan iyaduna habboonayn dumarku marka ay imanayaan masaajidka inay soo marsadaan cadarka iyo unsiga iyo udgoonka maadaamuu nebigu calayhi salaatu wasalaam aada uga digay oo dee qofkiioo cibaadaysanayaa arrimaha qaladka iyo gefka inuu ku dhacaa sax maaha waxaan habboonayn qaylqaylinta waxaa la yidhahda iyo buuqa xikmadda soomka laynoogu waajibiyey ka mid tahay qofku inuu edabsanaado oo afkiisi iyo aadinkiisi iyo uurkiisuba uruursanaado rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau uhi wain imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul inii saa'im hadduu qofkii iska urursanaa afkiisa haystee midila dagaalama ama caayo ha yidhaahdo waan soomanay macnaheedu waxa weeyaan buuqa qaylada cayda tirsiga waad joojinaysaa laxajecla aynu ka qabno awgeed soomka waxaynu iska yaraynaynaa raashinka badan oo qofku uu qaadanayo oo bishan waxaa loogu talagalay in nafta laga yareeyo cunnada oo jidhka iyo ruuxda labaduba ay tamar iyo xoog helaan ilaahay baa sidaa u daneeyey subxaana wa tacaala qofkii uu abuuray nebiguna sala allahu calayhi wasalam cunnada aadka u badan isagoo ka digaya waxa uu lahaa maa malaa bnu aadama wacaan sharan min badni qofka bani aadamkii caloosha weel ka shar badan ma buuxiyo weelkuu buuxiye ugu dhib badani waa caloosha uun weelalka kale haddii aad maantao dhan buuxsanayso waxba kuma yeelaan tan laakiin dhibaata ka timaada aynu maanta aragnay cudurrada faraha badan ee had iyo jeer laga cawde la yidhaahdo ha lala noolaado
dharaga iyo cunno isdhex qaada ayay u badan yihiin sunnayaasha bishan waxaa ka mid a inaynu kulmino aljuudu bilcilmi waalmaali waaljaahi wax alla wuxuu qofku heli karaya inuu dadka ku taro hadday tahay adduunuu siiyo iyo aqoon uu ku caawiyo qofbaka uu wax u sheegi karo uu gaadhsiiyo iyo erge uu walaalkii ku taro sidaasaanu nebigu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam oo xadiidkii saxiixeynka min xadiid ibni cabaas waxa uu cabdilaahi leeyay kaana rasuulu اllaahi ajwad الnaasi biاlkhayr nebigu sidiisaba waxau ahaa wax alla wixii samaa ee khayra ee horumara dadka isagaa ugu deeq badnaa inaha aynu soo sheegnay dhinac kastaba ha ahaado wixii cid lagu tarayo isagaa ugu deeqsisanaa deeqsinimadiisuna waxay usii badnayd ramadaan waana waktiga caalamka sare looga imanaye malakii malakuljibriil la odhan jiray uu u imanayo waxaanay ka mid yihiin inuu qofku isku daro soomka iyo sadaqada waxyaabaha jannada ilaahay lagu helo ee sabab u noqonaya rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam jannada isagoo ina jeclaysiinaya wuxuu yihi jannada waxaa ku yaala guryo yuraa daahiruhaa min bainiha wa baainuhaa min daahiriha qofka joogaa gudaha uu arkayo ka guduhuna dusha uu arkayo waa guryo wada muraayada oo aada iyo aada u bilicsan waxaana iska yeelanaya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam liman adcama acaam qofka raashinka bixiya ee dadka wax siiya wa alaana alkalaam hadalkana dadka u dabciye aan afxumayn ee hadalkiisu macaan yahay waa taabaca siyaam soomkana israaciya ee sunno iyo faralba iska dabageeya soomkiisu uu badan yahay waa sallaa bileyli wannaasu niyaam habeenkiina tukanaya cibaadada isu taagaya wakhtiyada dadku ay seexdaan markaa xasanaadka iyo cibaadooyinkaa faraha badan waxyaabaha lagu mutaystaabay ka mid yihiin jannada ilaahay waxaa kaluu nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam man fadara saa'iman kaana lahu midlu ajri hayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay qofku hadduu qof sooman waxa furiyo waxa uu leeyahay kaa sooman ajrigiisa in la eg culimadu waxay leeyihiin dee waa inuu dhergiyaa oo aanu hafrin hadduu xabad saanbuusaa u dhiibo afurintii ma noqonayso man fadara ficilka facala wuxuu tusiyaa takhiir had iyo jeer shaygii oo la badinayo ayaa uu tusinayaa markaa kolleyba waayi maayo ajrigiisa qofku wuxuu bixiyo laakiin waa qofkii wax waxtar u noqdaa oo uu dhargiya hal mar marka ajrigiisii buu leeyahy tahyi sunnayaasha waxaa ka mid a tahyi'at اlajwaa ajwaa nufuus lilcibaada bishan ramadaan in jawiga loo diyaariyo cibaado oo jawiga dadku marba waxba u diyaariyaan mar shaqaa loo diyaariya mar ciyaar baa loo diyaariya mar farxad iyo dalxiis iyo dabaaldeg hadda waa jawigii cibaadada marka taa macnaheedu waxa weeye qofku inuu shaqooyinkiisa soo yareeyo calaaqooyinkii uu lahaa iyo xidhiidhadii iyo safaradii soo ururiyo dee markaad isleedahay qur'aan iyo qiyaam iyo salaad intaasoo dhan barnaamij u diyaari macnaheedu jawigaagii hore waa in wax iska bedelaa dhib ma laha haddii bisha ramadaan la istahneeyo ama la ishambaliyeeyo oo bishaa soo gashay iyo khayrka aynu helo ilaahayna soo gaadhsiiye in la isku hambaliyo bidco ma aha culimmadu waxay u daliishanayaan xadiidka saxiixa ee nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam ataakum ramadaan shahru mubaarak farad allaahu calaykum siyaamah waxaa idiin yimi bil ramadaan la yidhaahdo oo barakaysan oo ilaahay soomkiisana idinku waajibiyo kaa iyo kaa iyo kaas intaasoo khayrahoo fara badan iska leh markaa ogeysiisku asxaabta sii ogeysiinaya waxay dhaban tahay ama ay u taagan tahay inuu ugu bushaaraynayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam bishan waxyaabaha inoo habboon waxaa ka mid a inaynu axkaamta soomka qaarna waan soo sheegnay wax ka sii ogaano oo soomkii mid waajib bay tahay in la isku xidhiidhiyo on la kala googoynin sida bisha ramadaan oo kale ikhtiyaar uma lihin inaad maalinna soonto maalinna iska dayso waxaa kale oo isagana tataabuciisiyo in la isku xidhiidhiyaa uu waajib yahay soomka kafaara gudka hadduu qofku qof dilo ama xaaskiisii bisha ramadaan la kulmo waxaynu 2 biloodoo sooma ayaa lagu lahaa oo isku xidhiidhsan ikhtiyaar uma laha inuu googooyo maalintii 60 maalmood uu isku xidhiidhinayaa soomka kafaara gudka ah laakiin dee soomkii dihaarkuna waa la mid ee suuratu qad samic ay ka warramaysay ninka xaaskiisii iska xaaraantinimeeyey 3 soom oo kafaara gud ah
ma soomkooda uu isku xidhiidhsan yahay qur-aanku tataabuc buu shardi ka dhigay inuu yahay soom isku xidhiidhsan soomka kale laakiin ka soo hadhay ikhtiyaar buu leeyahay qofku inuu jarjari karo muddo ramadaan oo kale qallaheeda dee intii kaa tagtay markaad qallaynayso waad googoosan kartaa si yaryar baad ola iman kartaa soomamkii sunnaha ahaana waa saas oo kale marka axkaamta siyaamka iyo wixii marba faa'iido u ah qaybtaynu gaadhaynu ka qaadan maanta intaasaynu kusoo koobayna allah inagu anfaco soomka salaada sadaqada dikriga ducadana allah inaga aqbalo dembigeenna iyo kii waalidkeenna allaha dhaafo waxaynu haynana allah inoo barakeeyo balaayooyinka wareegayaynu ka baqaynana allah inaga badbaadiyo dhibkana muslimku meelay joogaan ba allah ka dulqaado wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu